kumanaan iyo kumanaan isugu jira shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa deegaanka kalaksharka oo qaybiya gobolada saaxil iyo Togdheer ku soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer dhawaan loo soo magacaabay Maxamed Diiriye Xayd Daljir dareenka qaybaha bulshada oo ay qayb ka ahaayeen maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco bahda madax dhaqameedka culimada diinta odayaal aqoon-yahan siyaasiyiin ururada arrimaha bulshada haween dhalinyaro mudan iyo waxgarad kale ayaa ahaa mid ay waji furan iyo ereyo soo dhaweyn ah ay ku qaabileen Guddoomiye Maxamed Diiriye Xayd gaadiid tiro badan oo qayb ay ka ahaayeen fardo ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer u soo galbiyay dhinaca degmada Qoyta halkaas oo ay hadallo soo dhaweyn ah ka jeediyeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo xogayaha fulinta dawladda hoose ee Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan guddoomiyaha degmada Qoyta iyo mudan kale degmadaadi waa gobolkaagii ku soo dhawaanay guddoomiye barasaabka gobolka Togdheer cusub Maxamed Diiriye Xayd waxaanu leenahay guddoomiye soo dhawow guddoomiye waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celinaynaa magacaabista guddoomiyaha cusub waxaan leenahay madaxweyne waad noo soo xushay waad noo doortay waanu ka guddoonay waanaanu soo dhaweynaynaa maanta aad iyo aad haddaan nahay degmadii Burco iyo gobolkii Togdheer oo dhanba waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Maxamed Diiriye Xayd oo ah nin Burco wax badan hore uga soo qabtay xildhibaan gole deegaan buu ahaa barasaab ku xigeen buu ahaa maantana barasaab buu noqday waa nin Burco garanaya waa nin Burco wax badan ka soo qabtay waa nin reer Burco dhan sida mugeeyo miisaan kale soo dhaweynaysa ka muuqato aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dadka reer Qoyta oo iyaguna munaasabaddan iyo dhismahan qaaliga quruxda badan la sameeyay marka hore ilaahay baa mahad leh Allah inoo suurta gashay saaka inaan soo dhaweyno gobolka Togdheer ku soo dhaweyno guddoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Daljir waxaan leenahay guddoomiye ku soo dhawow gobolkaagii dadkaagii awal baad u shaqayn jirtay maantana aad u shaqayn doonto waxaan markhaati ka ahay reer Burco reer Togdheer inay diyaar ku yihiin si wanaagsan inay kula shaqeeyaan si wacan ay ku garab istaagaan siday awalba noo garab istaagi jireen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bulshada reer Togdheer ee qiimaha badan hablo iyo inamaba iyo cuqaal salaadiin dhammaantood aan soo koobi karayn xafladda qiimaha badan iyo soo dhaweynta iyo reeraynta ay nagala qayb qaateen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd oo hadalka qaatay ayaa ugu horeyn dadweynihii soo dhaweeyay ka codsaday inay faataxada u maraan allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Togdheer ee geeriyooday Xamse Maxamed Cabdi waxaan horta marka hore idinka codsanayaa barasaabkii gobolka ee dhintay inay faataxada u martaan ilaahay naxariistiisa janno siiyo faataxada u mara walaalaye faatax bismillaahir rahmaanir rahiim intaasi kadib guddoomiye Maxamed Diiriye Xayd ayaa sheegay inuu bulsho weynta gobolka Togdheer la dareen yahay isla markaasina ka codsaday in ay la shaqeeyaan isaguna hab siman oo cadaalad ah ugu gudan doono xilka mas'uuliyadda saaran haddaynu ka gudbino waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Togdheer munaasabaddan ballaaran ee ay sameeyeen ee soo dhaweynta ah waxaa kaloo u mahadnaqayaa madaxweynihii ii magacaabay gobolkan muddo dheer ka shaqaynayay gobolkan mataqaana wax badan ka soo qabtay gobolka aan ku abtirsaday ii soo magacaabay maantaasna waan mahadnaqayaa hadalkeena waxaynu dhiganaynaa xafladda dambe midhun baa reer Burco ka codsanaya midhun baa reer Burco ka codsanaya
midhuun baa reer burco ka codsanaya sida maanta soo dhowaynteeda ugu midaysantihiin inay shaqada ay ila qabanaysaan ugu midaysnaadaan anna waxaan idin ballan qaadaya oo igu axdigii ilaahaya inaan idinku shaqeeyo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo aan qof jeclaysanahayn waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa maamulka iyo guddoomiyaha iyo guddida degmadan qoyta oo wax badan qaranka u qabata cid kastoo imanaysa geedkan hadhaca ee wanaagsan u diyaarsan wafti kastoo imanaya waxaan leeyahay qaranka waa ku leedihiin abaalkiina u gasheen reer qoytaadaatiinna ugu dambeyn waxaa guddoomiyaha iyo dadweynihii tirada badnaa ee soo dhoweeyay ay u soo gudbeen dhinaca magaalada burco waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV burco